asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halkani waa Daalacan Media. Daawadayaal meel kasta joogteen waxaan dilaynaa kulan wanaagsan. Xubin wareedkan waxaynu ku soo qaadanaynaa toogasho iyo tooreyn ka dhacday magaalada London. Booliska dalkaasi waxay sheegeen inay toogasho ku dileen nin ku hubaysan toore kaasi oo dhowr qof ku dhaawacay buundada London ee dhanka koonfureed. waxaa la sheegay in ninkaasi ku hubaysan toore oo dhowr qof si xun u dhaawacay, iyadoo dad badan uu ku qasbay inay cagaa wax ka dayana ka carareen goobtaasi, iyadoo goobtaasi la sheegay inay ahayd goob aada u camirneed. xilligan wuxuu ahaa xilli duhurnimo ee xilliga London. hadal ka soo baxay booliska dalkaas waxaa kaloo lagu sheegay in goobta ay ka dhacday weerarka maantaito ay u dhowdahay goob sidoo kale weerar ay uga geysteen kooxda Daacish bishii Juun ee sanadkii 2017, halkaasi oo lagu dilay 8 qof 49 kalena lagu dhaawacay. weerarkan haddan ka dhacay London ayaa waxa uu ku soo beegmay la filayo inay doorasho ka dhacdo dalkaasi UK bisha soo socota ee December 13. xaaladda haatan ayaa degan sida la sheegay, waxayna boolisku weli baaritaan ka wada halkaasi. ninka la dilay ayaa la sheegay in uu watay suunka waxyaabaha qarxa, balse ciidanka baaramiinooyinka waxay sheegeen in uu ahaa mid suun feeg ah oo aysan ahayn kuwa qarxa. daawadayaal xubinteena warka waa naga kala socoteen Daalacan Media.